سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولالكين عبد حكيم أما حكيم ير أوفيشيال سيدا أولا تقاني كل الموضوع ما أنت كهدلين ودانك السياسة لكن يا كهدلين أنا جماعة ما مسؤول عنك يا أصيغان ديبت بل أيضا أكو رجي فكرة دي وحي كقبت waxaan ka hadlahayaa marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka hadlahayaa dadka dhaliilaya mucaaradka oo dhaliilaya dowladda Soomaaliyeed waa mid na nasisay oo aan ku degnay oo naga farxisay wax weyn bay wadanka ka qabatay waxa weeyaan wiilashii ku xirnay shay salas ee hooyooyinkood iyo aabbayaashood ay ooyahayeen oo burcadbadeeda loo haystay buu ka soo daayay hindiyuu tegay wuu ka soo daayay meelo kaleeto oo maxaa tirahdayay badan ayuu maxaabiis ka soo daayay maxaa tirahdayay hadda oo u dambeeyay oo cudurka corona jiro wuxuu ka soo daayay Sacuudi Carabiya ayuu diyaarada daal u dalbay oo laba mar ay keentay hadda wuxuu ka daabulanayaa Uganda oo haddana arda ka daabulaya oo iskooladii ka xirmeen oo wadankoodii lagu celinayo waxa ku soo haray hawadii diyaaradaha oo ay haysatay Kenya ayuu ka wareejiyay oo wadankii uu geeyay waxa ku soo hartay badii Soomaaliya oo laga hadlay intaas uu ku howlanay shir kasta iyo meel kasta uu istaago oo ka sheegayay marna inay tahay wax aan laga maarmin lagana hareyn oo sanna ka hareyn go'aankeedana waxa iskale maxkamadda asoo go'aan ka malahan waxa ku soo haray ciidamada qaranka mushaarkooda ayay bil kasta helaan akoomadooda ay ugu dhacdaa iyadoo shaqadooda iyo waajibkooda ay gudanayaan waxa ku soo haray caalamka indhahoodii soo wada jeediyay gudaha intuu dhisayay banaanka xooga saaray inuu ka soo dhiso wadanka wuuna ka soo dhisay indhaha caalamka oo dhan ayuu ku soo jeediyay Soomaaliya cid walba ayaa soo haweysatay oo maalin kasta imaanaysayo saxiix la galaysayo safaaradaha imaanaysayo waa wax aan wada ognahay oo naga qarsoonayn marka waxa weeye mucaaradka waxaan leeyahay ilaahay ka baqa waa la dhimanayaa waxaad soo kordhinaysiin male biritoole nafta inay idinku gaaray ma ogidin qabri hoostiisa haddaad tagtana xisaab baa kaa dambaysa iyo mujtamacaan dhiban wixii aad ku samayso oo madaxaaga ku gaara hadaa lagaa xisaabinayaa waxaa weeye ninkaas waa madaxweyne daacada ra-iisul wasaaruhu waa ra-iisul wasaare daacada waxaan oo la leeyahay maxaa tirahday dad baa la laayay kama aanu hadlin waxaan baa dhaca kama uma hadlin war asaga ma hadalka laga suga adinkaba xil baad qaadeen maad ka hadashiin maxaa asaga ugu eedeynaysaa hashu waxa la yiri maqaarka haday diiday meelo dulduleelay ka daydaa sheekadiinu sibay tahay waa u wada jeednaa dadka mucaaradka oo yiri suma wallaahi mar kale ayaa ceelasha loo qaxaya weeye dadka mucaaradaya dadka hadlaya oo arbushaya maxaa tirahdayay shirka la qabanayana waa dadkaas daday soo direen oo ay ka dambeeyaan war shacabu indhahayaan caad leedin ka saarin waryaan leedin qaldin ilaahay ka yaaba madaxweynaheena dowladiina ku kalsoonaada taageera ayaan idin leeyahay walaalkiin xakim yare official channelka anaga daawanaysa fadlan channelka hadaad ku cusubta subscribe like share dheh sii gaarsii asxaabta dunida daafaheeda kala joogta noo sii shargaray walaal mar walba waxaan ka codsanaynaa wixii tahay inaad noo sheer gareysid klibkaad uu soo gaaro noo sii faafisid waad ku mahadsantahay daawashadaada fadlan mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leenahay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu